qamrigan oo ka koobnaa 905 kartoon oo midkiiba ay ku jirto 12 dhalo ayaa konteenarkii lagu waday goobta lagu soo bandhigayay waxa goobjoog ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka dekedda Muqdisho taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha booliska Soomaaliyeed maamulaha furdada iyo taliyaha saldhigga dekedda taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha booliska Soomaaliyeed General Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa sheegay inuu xiran yahay ganacsadihii lahaa qamrigan laguna guuleystay in laga soo dhex saaro alaabo lagu soo dhex qariyay waxay ka kooban tahay qamrigaasi 905 kartoon oo khamriya waa sida ka muuqata halkaas waxaa lagu soo dhex qariyay qalabkaas nasiib wanaag waxaa gacanta lagu haayaa ninkii iska lahaa wuu xiran yahay wuxuu diyaar u yahay in sharciga la horgeeyo khamrigaas asaga ah ee tirada cadadkaas la eg haddii rabbiga awoodda la oggolaado markii xeer ilaalinta iyo maxkamaddu awoodda uluhu ay soo amarto waxaa lagu hor burburin doonaa sidaanoo kale meel maxfalah oo la wada joogo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dawladdu ay adkeyn doonto baarista agabyada ganacsi ee laga soo dejiyo dekedda Muqdisho si looga hortago walxaha maanka dooriyo oo sida qarsoon loola soo dago annagoo mar walba dhiirigelinayna ganacsiga iyo in ganacsatada Soomaaliyeed loo fududeeyo sidii ay u ganacsan lahaayeen si sharciyana alaabtooda intay u cashuurtaan oo la baxaan haddana arrintan oo kale waxay joojinaysaa asxaantii badnayd ee loo samaynayay ganacsatada oo qaarkood konteenarada markay yidhaahdaan waxyaalo isku mid ah baa ku jira aanu isku ogayn kastamka iyo dawladdu inay konteenaro badan oo la leeyahay waa isku mid alaab isku mid ah ku jirta wax naga jajabaya ku jira in sidiisa loo bixiyo waxay keenaysaa in kartoon kasta oo dalkan soo gala la furo sidaasaanuna aniga wasiirkii ganacsiga iyo wasiirka maaliyadda aanu ku amri doonaa kastamka maamulaha dekedda maaliyadda inuu furo oo cashuuro shay kasta oo dalkan soo gelaya sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.